cashirkan waxaan ku baran doonaa multiply and simplify radical expressions sida la iskugu dhufto loona simplify gareeyo radical expressionska. qaybtaana waa qaybtii koowaad, waxaa ka dambeeya qaybo kale oo ku xiga. marka hadda waxaan ka bilaabaynaa tusaalahan baa ku bilaabaynaa 3 root waxaad ku dhufataa root 5 root 3 ku dhufa root 5. marka ugu horeysa labada lambar oo la isku dhufanayo waxay ku hoos jiraan calaamadii ahayd radical sign-ka, calaamadii ahayd radicalka, calaamadda waa radical. markay laba lambar oo ku dhex jira calaamadda radicalka la isku dhufanayo waxaa la subiyaa marka ugu horeysa calaamadda radicalka baa la dhigtaa. marka saas u dhigatid baa waxaa la subiyaa labada lambar baa la isku dhuftaa. marka waxaa subinaysaa 3 baad waxaad ku dhufanaysaa 5 oo ah labadii lambar 3 5 markaa isku dhufanaysaa. haddana calaamadii radicalka baa dhiganaysaa. markaa saas u dhigatid baa waxaa subinaysaa 3 baa ku dhufanaysaa 5 3 lagu dhuftay waa 15. marka jawaabta waxay noqotay root 15 bay noqotay. waa intaa jawaabta, waa intaa meesha aga jeedid. tusaalahan waan tatarayna xusubinayna mid kale. hadda waxaa lagu yiri root 2 ku dhufa root 2 waa isku dhufanaysaa labadan kan baa waxaa ku dhufanaysaa midkan baa ku dhufanaysaa. marka labada lambar oo ku dhex jira calaamadda radicalka baa la isku dhufanayaa 2 iyo 2 baa isku dhufanaysaa. marka ugu horeysa calaamadda radical baa dhiganaysaa. markaa saas u dhigatid baa xusubinaysaa 2 baa ku dhufanaysaa 2 lagu dhuftay 2 saas baa u dhiganaysaa. 2 ku dhufo waa imisa waa 4 soo maaha. waa sidaa 2 lagu dhuftay waa 4 markaa isku dhufanaysaa 4. marka hadda waxaan u jeednaa lambar 4 inuu yahay lambar square ah. marka lambarka maadaama square yahay waa inuu kasoo dhex baxaa calaamadda radicalka, waa inuu kasoo dhex baxaa calaamadda radicalka. waxaa kasoo dhex bixi kara lambarada square-ka ah ama lambarada laba jibaaranaha ah. marka lambar 4 waa laba jibaarane, waa 2 lagu dhuftay wey. marka jawaabta waxay noqonaysaa lambar 2 ayay noqonaysaa 2 maadaama kusoo baxay inuu kasoo baxaa. marka jawaabta waxay noqotay lambar 2 ayay noqotay. haddii waxaad daawataa cashirkii kale oo la dhaho root maxaa la dhihi jiray square roots ha daawo iyo simplify radical expressions videoga kale oo la dhaho. tusaalahan tatirayna waxaan subinaynaa mid kale. hadda tusaalahan baa subinaynaa root 3 waxaad ku dhufataa 2x lagu daray 1. marka ugu horeysa waxaan subinaynaa labada lambar kan iyo kan baa isku dhufanaynaa. marka ugu horeysa waa inay ku dhex jiraan calaamadda rootka, waa inay ku dhex jiraan sababtoo ah rootka waxa ka dhex bixi kara lambarka square-ka ah ama lambarka laba jibaaranaha kaliya ayaa ka dhex bixi kara. inta kale waa inay meesha ku jiraan, waa xabis oo kale. okay, hadda 3x baa qoranaysaa oo isku dhufanaynaa. marka 3x baad waxaad ku dhufanaysaa 3x baa ku dhufanaysaa 2x lagu daray 1. 3x haddana parenthesis baa qoranaysaa 2x lagu daray 1 baa saas u qoranaysaa. parenthesis baa qoranaysaa. parenthesiska markaa saas u qoratid baa waxaad subinaysaa hadda waxaad subinaysaa distributive law baa subinaysaa. 3x baa ku dhufanaysaa 2x haddana 3x baa ku dhufanaysaa 1 saas baa subinaysaa. marka haddii aan distributive law subino wuxuu noqonayaa horta marka hore waa inaad rootka dhigatid. marka ugu koowaad rootka waa inaad dhigatid. marka hadda 3x ku dhufo 2x 3x lagu dhuftay 2x waa 6x 3 lagu dhuftay 2 waa 6 x lagu dhuftay x na waa x square ama waa sidaas waxa soo taqaana. haddii aad noqon videoyaasha kale ka horey daawo waa 6x square buu noqonayaa. 3x waxaad ku dhufataa 1x 3x lagu dhuftay 1x waa 3x way 3x waa 3x. marka jawaabta intaas bay noqotay. jawaabta waxay noqotay 3x square plus 3 ayay noqotay 3x square plus 3. tusaalahan tatarayna xusubinayna mid kale. hadda waxaa lagu yiri 15x to the third waxaad ku dhufataa 10x square. 15x oo la exponent 3 waxaad ku dhufataa 10x oo la exponent 2. marka ugu horeysa waxaad subinaysaa rootka baa dhiganaysaa kadibna waxaad isku dhufanaysaa
kuwan ayaad isku dhufanaysaa 15 baad waxaad ku dhufanaysaa maxaa la dhihi jiray 15 x baa waxaad ku dhufanaysaa 15 waxaad ku dhufataa 10 15 lagu dhuftay 10 waa 150 hadhowtii haddana x squared tay x to the third iyo x square baa isku dhufanaysaa haddana waxay noqonayaan x oo leh exponent 7 marka taas markaasaas 150 iyo waxaas markaas u bisid hadhowtii haddana waa inaad simplify garaysid oo meesha ka dhex fiirisid inay lambar ku dhex jiraan square in kale si hadhow uga soo baxaan meesha marka waxaa la suubiyaa marka ugu horeysaba waa la factor gareeyaa intaadan isku darinba marka 15 baa goonideed u factor gareynaysa 15 haddii aan factor gareynay wuxuu noqonayaa 3 lagu dhuftay 5 x to the third haddii aan factor gareyno wuxuu noqonayaa x lagu dhuftay x lagu sii dhuftay x buu noqonayaa 3x la isku dhufanayo haddana calaamad ku dhufa baa dhiganaysaa marka saas u dhigatid 10 baa factor gareynaysa asagana 10 haddii la factor gareeyo muxuu noqonayaa prime factorization of 10 waa maxay waxa weeye waa 2 lagu dhuftay 5 waa sidaas x square haddii factor gareyno muxuu noqonayaa waa x lagu dhuftay x way marka saas u factor gareysid baa waxaa subinaysaa marka koowaad waxaa fiirinaysaa inay meesha ku jiraan lambaro iyo xarfo square in kale baa ka dhex baaraysaa si square kaas iga soo baxaan radical sign-ka ama calaamada radical kaas iga soo baxaan marka hata waan u jeednaa lambar 5 iyo 5 waa square 5 lagu dhufto 25 marka laba lambar oo la isku dhufto waa square marka 5 iyo 5 meesha waa square labadan x waa square x lagu dhufto x waa square x lagu dhufto x waa square marka kulligood waa inay balan ku soo baxaan waxa square ka meesha ama laba jibaaranaha waa inay balan ku soo baxaan marka square kan 5 iyo 5 waa square marka la isku dhufto marka 5 square kaado hal 5 baa balan ku soo baxaysa 5 kalena qashinka la iskaga daraya ama waa ka tagaysa x iyo x tan waa square x marka hal x baa balan ku soo baxaysa soma waa sidaas haddii aadan aqoon videoyaasha kale ka horeeya daawo sida root maxaa la jira simplify radical expressions daawo x aan balan ku soo baxday square-kiisa haddana labadan x lagu dhufto waa square aydana marka hal xaba balan ku soo baxaysa x baa balan ku soo baxaysa marka saas ugu soo baxo rootka calaamadda radicalka calaamadiisa waxa ku haraya marka meesha 2 waxa ku haraya 2 iyo 2 maya 3 iyo 2 baa ku haraya 3 lagu dhuftay 2 baa ku haraya 3dan way ku haraysaa rootka sababtoo ah square ma haysato kale 2na way ku haraysaa rootka sababtoo ah ma haysato square waxa kale ku haraya x tan ayaa ku haraysa root ku haraysa rootka sababtoo ah aydan ma haysato square kale marka rootka way ku haraysaa marka saas ugu harto baa xasubinaysaa hadda waad isku dhufanaysaa 5 haddana x lagu dhufto waa x square haddana rootka baa dhiganaysaa 2 3 ku dhufo 2 3 lagu dhufto 2 waa 6 marka saas tahay x ku sii dhufo waa 6x marka final answerka wuxuu noqday 5x square plus waxaan ka wadaa 5x square root 6x ayuu noqday marka hadda waxaan subinay waan isku dhufanay waana simplify garaynay marka saas baa qaab shortcut baa la dhahaa ama qaabka ugu fudud oo loo simplify garayn karo waa sidaas haddii kale hawaka marka jawaabta waxay noqotay intaas bay noqotay tusaalahan tatirayna waxaan subinayna mid kale waxaan subinaynaa tusaalahan hadda x lagu daray 3 root x lagu daray 3 lagu dhuftay root x lagu daray 3 kuwan baa isku dhufanaysaa marka ugu horeysa waxaad dhiganaysaa lambarada ku dhex jira rootka ama calaamada radicalka baa isku dhufanaysaa marka x lagu daray 3 baa x lagu daray 3 ku dhufanaysaa marka intaan okay waxaad dhiganaynaa marka hore radical sign-kii baa dhiganaynaa marka saas u dhigano calaamadii radicalka ahayd parenthesis baa dhiganaysaa
3x lagu daray x lagu daray 3 kan kooda x lagu daray 3 ba qoranaysa x lagu daray 3 hadana parenthesis ba qoranaysa hadana waxa qoranaysa parenthesis hadana x lagu daray 3 ba qoranaysa x lagu daray 3 x lagu daray 3 marka saas qoratid immediately waxaan u jeednaa in meeshan ay tahay ay ku dhex jiro meeshan inay tahay laba jibaarane ama square ba u jeednaa sababtoo ah 3 lagu daray x lagu daray 3 iyo x lagu daray 3 haddii la isku dhufto waa square ba imaanaya waa laba jibaarane marka waa laba xool isku mid oo la isku dhuftay marka waa square marka waa inay mid banaanka soo baxdaa maadaama square tahay taa waa inoo ogaatid square-ka banaanka waxa soo baxaya mid ba radical ka soo baxaya marka hadda kan wuxuu sii noqonayaa x lagu daray 3 mu noqonayaa jawaabta waxa weeye x lagu daray 3 final answer-ka waa sidaa salaam tatarayna waxaan subinaynaa mid kale hadda waxa lagu yiri 3 waxaad ku dhufataa root 5 wuxuu noqonayaa jawaabta wuxuu noqonayaa 3 ba qoranaysa root 5 ba qoranaysa lambarka hoose lambar 5 kuma dhufan kartid 3 sababtoo ah lambar 3 root kuma jiro laakiin 3 root ku jira waa ku dhufan kartay marka hadda jawaabta waxay noqonaysaa 3 root 5 ay noqonaysaa jawaabta sidaas way isku salaanta taran xusubinayna mid kale hadda waxaan subinaynaa root 24 ku dhufo root 6 marka ugu horeysa waxa subinaysaa 24 ba factor garaynaysaa 24 ba prime factorization ku subinaysaa prime factorization marka 24 factor garayn wuxuu noqonayaa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 2 lagu sii dhuftay 3 2 lagu dhufo 4 ku sii dhufo 2 waa 8 ku sii dhufo 2 waa 24 Soomaha sidaas marka soo factor garaysid 24 ba factor garaynaysaa marka factor garaysid 24 calaamad ku dhufayd ba horteed ku qoranaysaa kadibna 6 ba factor garaynaysaa 6 oo prime factorization inta lagu subiyo wuxuu noqonayaa 2 lagu dhuftay maxaa la jiray 3 2 lagu dhuftay 3 waa 6 marka saas yahay ba xasubinaysaa hadda marka labadooda factor garaysay ba waxa fiirinaysaa in meesha ay ku dhex jiraan lambar square in kale 2 lagu dhuftay waa square 2 iyo 2 waa square ayadana 2 lagu dhuftay ayadana waa square 3 lagu dhuftay super color-ka aan bedeshiisa u aragtid 3 lagu dhuftay 3 waa square 3 lagu dhuftay waa square maxaa la dhihi jiray oo kale 2 lagu dhuftay maxsubi 2 lagu dhuftay 2 ayadana waa square marka hadda meeqa square ba meesha ku jira kan waa square marka hal xabba balan ku soo boodaya 2 lagu dhuftay 2 waa square marka hal xabba balan ku soo boodaya asagana haddana lagu sii dhuftay 3 iyo 3 waa square marka hal xabba balan ku soo boodaya marka had isku dhufo 2 lagu ku dhufo waa 4 ku sii dhufo 2 waa 12 marka final answer-ku wuxuu noqday 12 ayuu noqday final answer-ka am jawaabta ugu dambaysa 12 ayay noqotay 12 weeye cashirkan oo ah qaybtii koowaad intaas ay ku egyahay waxa daawata qaybta labaad daawo qaybta koowaadna way dhamaatay wali ma daawanaysaa way dhamaatay marka qaybta labaad daawo qaybta labaad ku xigta